Airport is a big project. It's very sophisticated and international standard airport. As we know, such airport, it is the mandate and the capability of national government. But Somali region is the only region that implemented such big project. The resource of this project is not from somewhere else, it's the resource of the region and state, particular revenue. So this indicates ጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ዜናዊ እዚህ ጋር ሲመጣ የተጠየቀ አንድ ኤርፖርት አርግልን ብለን በአገር ሽማግሌዎች ደረጃ ላይ ነበርን። እዛ ጊዜም ነበርኩት እኔ ኢንሻአላህ ወንኩ ፈራxsanahay garoonka xariga laga jiro diyaarada oo faraxsanahay boqolkiiba aad banu abku soo dhaweeya Dr. Debrezion Gabre Mikael amarti sharafta gaarka ee munaasabadeenan hambaliyo wad mahadnistehen waxa lagaga soo baxay noloshiisa loonayd xisbigeena samawade markii uu saluugay inaan lagu sugnaan karin ku sargooyay hadalku galka seefta kala baxay su'aal way taaganaysan habadii ay u badunaga samaysteen suuqinta lagu gado sidee lagaga soo baxay xisbigeena samawade markii uu saluugay inaan lagu sugnaan karin ku sargooyay hadalku galka seefta kala baxay waxaa lagaga soo baxay maamulkeena suubane markii ay sameeyeen liyuu ficil la sara kacay oo 3 jeer ku darmaray inuu nabadgelyada sugo markii ay safaysteen dadka qoriga saarteen ubana sood ka galiyeen ayaa samaha lagu leeday waxaa lagaga soo baxay. The resource of this project is not from somewhere else, it's the resource of the region and state, particular revenue. So this indicates the capacity of Somali region and state and commitment to have such big project. This can be one big indicator that can indicate the capacity